soo socota Soomaaliya cusub oo adeertiyaad adigu aad ku soo kortay waxaan ku rajaynayaa ku qalbi fiicanahay hubaa kulliyad fiicanahay in mar kale la dhigi doono Soomaaliya waxaa maanta laga joogaa 50 maalmood markii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre xilka laga xayuubiyay golaha shacabka ayaa xilka ka qaaday ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre taasoo saacad kadibna uu aqbalay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla habeenkii 25 Juulaay ee isla sanadkanna Xasan Cali Khayre ayaa ku dhawaaqay in uu si rasmi ah xilka isaga dagay uuna aqbalay inkastoo uu sharci darro ku tilmaamay haddaba 50 maalin kadib Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa goordhow wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay ama si rasmi ah ugu taagan yahay xilka musharaxnimada madaxweynaha dalka Soomaaliya sanadka soo socda ee 2020 taas oo ku soo aadaysa xilli ninkii isaga bedeli lahaa ama loo magacaabi lahaa jagada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo san wali soo magacaabin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu xilka ka dagay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa dad badan waxay u soo jeediyeen inuu si degdeg ah iskugu soo sharxo xilka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee 4 sano soo socota taas ayaana haatan rumowday oo Xasan Cali Khayre waa musharax rasmi ah oo u taagan xilka jagada ugu sareysa dalka Soomaaliya ee madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed ayaa durba aragti kala duwan ka dhiibanaya musharaxnimada uu Xasan Cali Khayre ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka jagada madaxweynaha Soomaaliya waxa la rumaysan yahay inuu yahay siyaasi da'yar ah oo ka soo bixi kara xilkaas maadaama uu hore u soo qabtay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tan oo kale ayaa dib waxa inoo soo xasuusinaysaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilka iska casilay ayaa markii dambe waxa uu noqday madaxweynaha Soomaaliya haddaba Xasan Cali Khayre sidaas oo kale miyuu sameyn karaa